hagaag salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan kaloo xiiso badan waa muuqaaladii caafimaadka iyo cilmi nafsiga barnaamijka caawana waxaan doonayaa inaan kusoo qaadano cilad shakhsiyadeed bulshada ka dhex jira oo schizoid personality disorder loo yaqaano hore ayaan muuqaalo uga sameynay balse waxaan rabaa si kooban inaan qaybta tiktok-ga kusoo gudbino insha allah haddii rabbi idmo waxaan kaloo sidoo kale isku dayi doonaa facebook iyo youtube-ka inaan soo gelino haddii ilaah idmo haddaba muuqaaladeena waxaa inta badan ugu talagalnay inaan wacyigelin ahaan aan usoo gudbino haddii aad isku aragto qaar ka mid ah calaamadaha waxaa habboon inaad dhakhtar la xiriirto oo tala bixin caafimaad isaga ka qaadato. Schizoid personality disorder waa xaalad caqliyeed maskaxda ku dhacda qofka bini'aadamkana ka saameysa taasoo qofka uu dareemayo inuu xiriirkii bulshada uu si gaar ah uga go'ayo isagoo isku dayaya inuu dadka oo dhan jaro. Qofkan inta badan ma xiiseeyo inuu dadka xiriir la sameeyo oo bulshada ayuu wuxuu ku dareemaa diiqad aad u fara badan markaasna wuxuu sameeyaa inuu dadka ka go'o si gaar ah waliba dadka ay dhici karto xiriirada gaar inuu kula jiro gaar ahaan xiriirka guurka aad ayaa culays badan kaga dareemaa wuxuuna leeyahay calaamado khatar ah oo bulshada ay ku ah caqabad xiriirkiisa xanuunkan markaa bulshada marka la eego personality disorderska marka loo eego kuwa kale isaga wuu ka yaryahay cabirka oo numberka bulshada ku dhaco aad ayuu u yaryahay balse bulsho badan ayaa Soomaalida laftirkeeda aad ku arkaysaa dad leh cilad shakhsiyadeedka schizoid personality disorder xaaladdan waxay keeni kartaa xanuunado kale oo kala duwan oo nafsi ah qofka haddii uusan laga daweyn ama uusan ka helin cilaaj nafsi ah oo uu u baahan yahay wuxuu keeni karaa depression wuxuu keeni karaa niyad jabka iyo walaaca ama waxa loo yaqaano anxiety disorderska intaba uu keeni karaa sidoo kale waxaa dhici karta xanuuno kale oo dhinaca nafsiga ah ama xanuunada maanka inuu ku keeno noloshana aad ayay ugu adag tahay socoshadiisa sababtoo ah dadkaba wuxuu ku dareemaa ciriiri aad u fara badan waxaan rabaa dhowr calaamadood oo uu leeyahay inaan muuqaalkan kusoo gudbino oo ay ka mid tahay wuxuu doonaa mar walba inuu sidaan hore usoo sheegnay keli noqdo oo ma jecla xiriirka bulshada sidoo kale wuxuu farxad ku dareemaa inuu keli mar walba ahaado oo isaga ayaa isku mashquulsan oo nafsadiisa wuxuu kaloo aad uga adag inuu mashaacirta iyo dareenka uu dareemayo hadday tahay murugo cabsi farxad waxaasoo dhan aad bay ugu adag tahay inuu sharaxo oo dadka ula soo baxo waxaa kaloo ku yar oo aad ugu yar inuu ku dareemo xagga gogosha guurka marka la yiraahdo ciriiri aad u fara badan ayuu ku dareemaa qofkan waxaa kaloo dhaqdhaqaaqa ama in meel loo baxo ama xaflado la aadana waxa waaye dhibaato badan ayuu kala kulmayaa weliba qofka markaas ku dhow oo isku daya inuu geeyo xafladana marka ugu dambeysa way isku dhici doonaan wuxuu kaloo leeyahay inuu dadka kale uusan xiiseyn oo qof cusub inuu barto aad bay ugu adag tahay oo mucjiso ayay ku tahay wax culus oo dhibaato ah oo maskaxdiisa soo gaartay ayay ku noqonaysaa sidoo kale dhaleecaynta iyo qofka in wax laga sheega ama sidoo kale in la ammaano laftirkeedana inuu ka jawaabo iyadana aad bay ugu adag tahay haddaba qofkan wuxuu u baahan yahay in la fahmo oo daryeel caafimaad dhinaca maanka ama maskaxda loo sameeyo lana xiriirsiiyo dhakhtar sababtoo isagana nafsadiisa dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo mashaacirtaas uu qarinayo marka dambe waxay ku keeni karaan fulkaano ah inuu nafsi ahaan u qarxo sidoo kalena wuxuu u baahan yahay dadka la xiriira oo ama ehelka la ah ama xiriirka gaarka kula jirana aad ayay ugu dhibtoonayaan waxaa loo baahan yahay in dhakhtar lala xiriirsiiyo oo qofkaas uu helo psychotherapy waxa la yiraahdo ama talking therapy in lala sheekaysto oo waqti dheer la siiyo sessions kala duwan dhakhaatiirta cilmi nafsigana ay daweeyaan dhinacaasi nafsi ahaan balse aad ayay u adag tahay in daweyn uu ka helo oo arrintaas ku qanco in la helo sidoo kale waxaa maraqibtooda u baahan karaa in la siiyo dawooyinka chemicalka ah oo la siiyo muddo xanuunada ay dhici karto inuu soo jiito sida xanuunka niyad jabka oo aad ugu badan dadkan si xad dhaaf ah waa dadka ugu badan oo u nugul inay ku dhacaan xanuunada nafsiga gaar ahaan dhinaca depressionka ama anxiety-ga waxaa habboon haddii calaamaduhu ay sii kordhaan qofkan culaysyo badan dareemo noloshii ka dhaco dhici kartana xanuuno kale oo nafsi ay ku wada dhacaan sida xanuunkan depressionka oo aad ugu badan in aad dhakhtar qofka lala xiriirsiiyo oo la daweeyo daweyna la siiyo
muuqaalkeena caawa halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna kusoo koobayna insha allah intaan muuqaal kan lamid ah ku kulmi doono sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu